Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan idiin soo jeedin doonaa xilligii maamulka rayidka ee Soomaaliya. Siyaasadda Soomaaliya xilligii maamulka rayidka sanadka markuu ahaa 1960kii ilaa 1969kii waxa ay ku dhisneyd xisbiyo badan iyo habka baarlamaaniga, iyada oo la qabtay muddadaas ka yar 10 sano, 4 xilli doorasho, 2 doorasho madaxweyne. Sanadka markuu ahaa 1961 ilaa 1967 iyo 2 doorasho baarlamaana. Sanadka markuu ahaa 1964 ilaa 1969 siyaasiyiinta xilligaas waxay ku guuleysteen ilaalinta inay si nabad ah isku wareejiyaan xilka, iyadoo ku loolanka xukunka iyo afgembiyada ciidanku ku badnaayeen Afrika iyo dunida saddexaad. Soomaaliya waxa ay tusaale u ahayd dimuqraadiyadda Afrika, iyada oo siyaasadda Soomaaliya xilliyadaas ku dhisneyd isbahaysiyo ka dhexeeya qaybaha kala duwan ee siyaasadda dalka si loo helo codka looga baahan yahay xubnaha baarlamaanka. Xukuumadda iyo xisbiga SYL xilligani waxa uu ku caan baxay siyaasadda furfuran oo si sharciga waafaqsan loogu tartamo xukunka. Xukuumadduna awood uma adeegsan jirin mucaaradka. Madaxweyne Aadan Cadde oo ka hadlayay munaasabadda uu xilka ugu wareejinayay madaxweyne Cabdirashiid ayaa ku faanay in uu wareejinayo hoggaanka dowlad aan qofna fikir dartiis ugu xirnayn. Muddadii u dhaxaysay xurnimada 1960 ilaa doorashadii madaxweyne Cabdirashiid 1967 waxaa lagu tilmaami karaa xilligii ugu nabadgelyada iyo tignaanta fiicneyd, iyada oo baarlamaanka gudanayay waajibkiisa. Dood dheer oo laga wada qayb qaatay, kadibna go'aanada lagu gaari jiray isqancin madalaadda waxay ku tarjumaysaa dhammaan qaybaha siyaasadda ee bulshada. Sidoo kale golaha wasiirada talada waa la wadaagi jiray